سائلكاني wuxuu yiri waxaan ahay qof hurdada ku dheelalaaba ama isagoo hurda waxa lagu rabo sheego laba xaas baan leeyahay labada xaas mid kamid ah ciladeeda ogaatay hameen barkiiba inta ay kicisay tii kale iga furta reerkii maxaa dhaqan maxaa furan alxamdulillah horta qofka bini aadamka qaacida shariicadeena ficilkii iyo qowlkiisa erayga iyo falka uu sameeyay loo qabanayo waa wuxuu qasad iyo ku talagal u sameeyo wixii qasad iyo ku talagal ka baxsan qabasho malaha sadarteed baa qofku isagoo soo jeeda waxyaabo aan loo qaban baa jira waa la qasbay waa qof khiyaarkii laga qaaday oo isagu rabitaankiisa aan waxan ku dhihin qasadku waa rabitaankaaga aad ku dhahdo way rabitaanku wuxuu u baahan yahay inaad rabitaankaaga ku dhahdo waxaad leedahay inaad ogtahay ood garanaysaa ka horeysa qof la qasbay wixii eray ee uu ku hadlay looma qabto hadduu xaas furo hadduu gaalnimo ku hadlo ilaa man kuriha wa qalbuhu mutmainun maxaa yeelay qofkan doonitaankiisa iyo rabitaankiisa kuma hadlin rabitaan dad kale ku hadlay waa laga keenay adoo soo jeeda baa nusuusta shariicadu sheegtay inaan lagu qabanaynin eray carabku ka xaday oo ku talagelin eray baa rabtay inaad tiraahdo eray buu afku ka boobay waxa nabigu sheegay nin gaadiid malcid la kaga lumay sahaydii biyo u saaraayeen intuu raadiyo waayay buu yiri bas meel aad u ciirsatana mala cuntiyo biyo geedka hooskiisuna iskaga dhimatay halkan iska joogo iska hurda qabatay markuu soo toosay buu gaadiidkiisa kor taagan arkay farxad buu kala badbatay marka ilaahu adoonkaygi baa taana rabbiga baan ahay wuxuu rabay inuu dhaho ilaahu rabbigay baa tahay anna adoonkaygi baan ahay eraygii baa ka gadmaday farxadii badnideeda eraygu waa gaalnimo looma qabanin waayo eraygan inuu yiraahdo mar rabine eray kale uu rabay inuu dhaho afka ka boobay waxa la mid ah fuqahadeena baabu talaaq kaga hadlaan hadii laakiin eraygan uu iga boobay sida aad u tiri si uu boobi karaafku waa inuu yahay ilaahu rabbigay baa tan adoonkaagi baana way isdaba mari kartaa waxay dadaan fuqahadeena ka hadlaan nin baa wuxuu rabay inuu xaaskiisi u yeero Soomaali baan u bedelay waxa la yiraahdaa gabadha fartuun baa la yiraahdaa ka soo qaad fartuun inuu yiraahdo halku rabay uu furanay yiri ma furmayso waayo fartuun iyo furan way isu dhow yihiin laakiin adoo xaliima rabaa xaliima furanay balaga yeelaydi isoo kaysi way moogtay nin baa wuxuu yiri sagaaro lugteeda dhigtaas kula qabta xabad way kaysi wax kale way xoqanaysay baa waxani waa inuu khaldami karo ووجهه عادي ولذلك العلماء هذا كان وجه العذر ليس ببين فإن الطراح العذر خير من العذر وجهه sababta waxaan inuu kaaga khaldamay aad u sheegayso waxba iga gadnay aad leedahay hadii wax la fahmi karo suuragal ahayn ila la sheegin baa ka roon nin ciyaarayo been sheegay baa lagu qaladkii hadana been sheegaysa kugu darban marka eraygu haduu afku ka boobo uu soo jeeda eraygan inuu eray u dhow yiraahdo rabay eraygii uu kaga dhacay eraygu waa soo dhawaan karaan arabiga waxay ku yiraahdaan gabadha taariiqa la dhihi jiray yaa taariiqa isagoo leh yaa taariiq yiri bay kaga dhacday صدرت أريجا واي كتلاقل يا ربيتان ومدين قف هرد ربيتان ماله مكلفنا معه ولذلك صلاة دي هرد كاغت تكتي دم معه هرد كاغت تكتي دم معه نبي النبي صحات كيس كسو دعوي صلى الله عليه وسلم حلق النبي حتى رسول الله يدور انه كدعو سو حكمدها صلاة الصبح نكن ومكعو الى قرح سو بخدا مكرو انتو سيحاتا ورويشن باليسي وحجره رسول الله وارنت لكن waxa laga rabitaan kayga ma خير سان nahay hiddo waxaan u leenahay habeen hadaan seexano ila qorax tirkaaye kululaysa ma kici karno kaligeena ma aabahay baa waa adeerkayba ooga hiddo saan u nahay reeb saasanahay ma kici karo yiri dawladda ku qoslay wuxuu yiraahdaa marka soo toosto qofka naaimka ah bil ittifaaq waxa la isku raacsan yahay mukallaf ma haduu hadlo waxbaan furay waan gaaloobay kanaan sameeyay dambi baan galay waxa soo dhax ka soo qaad malaha صدرت wax ka furan ma jiro qof hurdana wax kama furmaan hadii laga yeersiiyo haduu isagoo iskaga hada qaba qof hurda hadalkiisa wax ka soo qaad malo mukallafna maaha rabitaan iyo qasadna kama soo billahi tawfiiq